بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Warrior Nation meel kasta aad joogtaan. Waxaan idin rajaynayaa caafimaad, cibaado suuban iyo cimri dheer. Ilaahay dadka xanuunsan xanuunka ka qaado. Inta kale maaragtay Ilaahay ha noo siyaadiyo. Maanta topic aan raba inaan kusoo qaato barnaamijkan inaan ka wada hadalna aan jeclahay. Waxay tahay marka reerka burburo oo xaaska iyo odageeda kala tagaan, taas macnaheeda ma aha caruurtana in laga tagay oo maaragtay furitaankii xaaska lagu sameeyay in caruurtana la furay. Qiso aad u xanuun badan baa last week soo martay. Week hadda lasoo dhaafay, jimcihii actually lasoo dhaafay. Marka inaan idinla qaybsadaan rabay arrintaas. Waa wax yaab leh, markaa fiirisid waxyaabaha oo hadda goboladan wadamadan westernka aan joogno, waxyaabaha ay ku fiican yihiin waxaa ka mid ah marka reerka burburo, qoysaska caruurta inay waqti u qaataan ama custody waxa la dhahaa, ama maaragtay inay waqti la qaataan ama la kala qaybsado caruurta aragtidoodii iyo la joogitaankoodii iyo hayntoodii iyo maaragtay koritaankooda in la kala qaybsado, ama qof inuu maaragtay la dhaha weekendiga isii aniga sabti iyo axad aan ka haysanaa caruurta. Waa la isku dagaalaa, lacag badan, looyaro badanaa shaqadaas bas wax kale ma ka qabtaan. Shaqadaas waxay qabtaan inay maaragtay dadkaas u doodaan si ay waqtiga caruurtooda ay la qaadan lahayn usoo dhiciyaan. Marka waxaa fiican waxyaabaha haddaa wadan wax kaga dayanaysid, waxyaabaha wanaagsan inaad kaga dayatid. Sheekada marka aan idin sheegay maalin jimcihii dhaweeto meeting baan kasoo baxay, waan soo socday, waan iska soo lugeynay because coronaviruskii waxaa jiray, marka ma rabin inaan public transportation ka qaato, marka waan socday, waan soo lugeynay. Yar Soomaali oo sarqaansan, wax kale muqaadaraad cabsan oo nin aad u yar ah, 17 sano 18 sano ku qiyaasay markaas iga hor yimid. Aniga caadi ahaan qof Soomaali haddaan arko, ama ha cabsanaado, ama ha xijaabnaato, ama jalbaab ha wadato, ama ha gar dheeraado, ama ha gar gaabnaado, waa salaama, assalaamu calaykum iyo warna iska dhaha, waa la sheekaystaa. Yarka marka uu igu soo socday, indhaheena isku dhacay. War hayo iyo warna dha adeer, caafimaadka war. Markaasuu yidhi adeer Soomaali ma tahay? Ayuu Soomaali Ingiriis igu weydiiyey. Haan dhahay adeer. Wuxuu yidhi waa baahanahay, lacag ma isii kartaa aan cunto ku gato? Marka aniga sharci ahaan waxaan ka imaaday magaalo Siyaala dhahan degnaa jiro oo dadka homelesska ama dadka daraaga qaata ay ku badan yihiin. Marka waa horaan bartay inaan qof bini aadan oo saqraansan lacag aadan siisin, laakiin haddaa cunto u gadi kartid cunto aad siisid. Marka waxaan dhahay adeer bisi shooba meeshan ku yaalo, burger maaragtay restaurantina meeshan uu ku yaalaa. Haddaa rabtidna grocery aan kuu gadi karaa, marka maxaa rabtaa lacag ku siinaa, laakiin waxaa rabtaan kuu gadaa. Marka wuxuu yidhi burger iyo fries aan u baahanahay. Waan isla raacnay, waan la socday, meeshaan tagnay. Cabitaankii wixiisii oo daldalbaday, orarkii wixii aan bixiyay, waana kala dheeraan because hadda dadkii inaa 2 mitir isku jirtaan waa, marka halkaasuu taagan yahay, adna halkaan oo taagan. Markaasuu su-aashii igu horreysay u weydiiyey wuxuu ahay, adeer caruur ma leedahay? Haan dhahay caruuraan leeyahay. Wuxuu yidhi aabbo fiican ma tahay? Fiiri, aabbo fiican ma tahay? Markii hore way iga yaabisay. Waxaan dhahay yarkan cabsan oo maaragtay muqaadaraadka jirkiisa ku jiro oo saan u rafaadsan, aniga wuxuu iga walwalayaa inaan aabbo wanaagsan ahay. Marka waxaan dhahay adeer wallaahi maarkino ilaahay maaragtay hanaga wada dhigo, marka waa dadaalaa, waan dadaalaa. Wuxuu iiga sheekay dhibaatada aabihiis asoo yar inuu ka tagay, oo 10 iyo intaasoo sano aysan arkin, oo aabihiis nin xun yahay, uusan wax jacayl u hayn. Uu ooyay markaan fikiray cunugan dhibaatada ku jirto iyo maaragtay muqaadaraadkan oo ku jira iyo rafaadkan oo ku jiro, xanuun aabalaan aan u qiyaasay. wax kale waa dhici kartaa inay tahay, laakiin saasaa u qiyaasay. sheekadan waxay soo xasuusisay marka sheeko kale hadda ka hor anoo Seattle Washington degan 2006 inay ahaydaan jeclahay.
gabar social workerada oo madow ah oo maraykanad ah oo soomaalida aad u jecla soomaalida maaragtay miitinyaashooda iyo meelahay soomaalida isku tagaan community waxaasay aad xiiso u jir ay maalin soo wacday waxay tiri cali waxaan kuu baahanahay inaad naga caawisid wiil soomaali ah oo 14 sano jiro systemka la soo geliyay anaa social worker u ah marka wax buu xadxaday laakiin markaan la kulmay iyo yarka la sheekaystay soo u wanaagsan soo sweet u yahay ma malay kartid marka yarkii aan bartay role model u noqday macnaha big brother camal u noqday iskuulkii inaan maaragtay kaga sheekaysto inaan weekendyasha banaanka u wado inaan wax shopping wax u baahan yaho yaryar u sameeyo kaba iyo waxaas inaan usoo gadgado reerkii maaragtay inaan hooyadiis shan hablood oo la dhashay markaas hooyadii iyo carruurtii wixii aan bartay maasha allah yarkaas maanta gabartaas alxamdulilah rabbil caalamiin iyo anigii caawimaantaas yaroo sameey maanta xaasuu leeyahay waa nin wanaagsan wuxuu haystaa shaqo wanaagsan jaamacaduu ka baxay nin diintiisa ku xiran waayo ilaa hadda saaxiibaan nahay nin maaragtay aan aad u sheekaysano waayo marka labadaas tusaale waxaan ku soo qaaday waxa importantiga ah haddaad qofka kala labada qof waa kala tagi karaan ilaaha noo sameey maaragtay ilaa maaragtay nikaax iyo dalaaqba ilaaha baneey laakiin macnaheeda ma aha caruurta ninkii naagta hadday kala tagaan inuu caruurti maalintaas oo ugu dambayso gabdhahana haddii maaragtay ninka oo jecel yahay inuu ilmihiisa hadaa la kala tago oo jecel yahay weli ilmihiisa inuu arko ama waqti geliyo adinkana yaan lagu dhibin oo maaragtay hal la siiyo time oo caruurtiisa la qaato lasoo sheekaysto banaanka u wada ninka soomaaligana please waa ku baryaa ilaahay haddaad adduunkan caruur aad keentay waa lagu weydiinayaa waa wax clear ah inaa beri lagu weydiinayo aakhira maalintaa tagtay wax su-aasha ugu horeysa lagu weydiinayo because nimca ilaahay ku siiye waa nimcada ilaahayna sii dhanna su-aalaha ka dambeyso marka tan aan jeclaan lahay inaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ama waddanka gudihiisa ama dibaddiisa ay ka fikiraan xaqa caruurta ay leedahay waaridnimada xaqa ay leedahay ma aragtay waarid maalintaad caruur waddankan adduunka ilaahay caruur aad keentid ilaahay ku siiyo oo caruurtii banaanka aad keentid adiga part time waalidnimo waa kala dhamaateen shaqadaas ilaa dad waaweyn ay noqonaan oo xoogooda qabsanaan oo caqligooda ay isticmaalaan waxaa tahay full time father ama full time mother layskuma haytaas waa wax la cadeeyo wax la ogyahay oo clear ah waa marka qofka dadka waxa ugu xun qof xaqii lagu lahay aanan gudan waxaan kala dhan waa laga sabri karaa waa laga daba tagi karaa waa la bedeli karaa marka waxaan jeclaan lahay taas inaad ku dadaashaan kulligeen ilmaha kuwii hadda ka hor ilmo dhale oo xiriir aan la lahaan oo muddo ay ka maqnaayeen 5 sano aan arag 6 sano aan arag 1 sano aan arag wax leyd ah ma jirto wax kasta waa la sameey karaa ka daba tag hadduu nin weyn yahay la sheekayso raalli iga ahaw dheh maaragtay oo macnaha dambigaad gashay qiro caruurtan waa maaragtay way ku jecel yihiin waalidkooda waa ku cafinayaan laakiin ma aha inaad maaragtay inaa waa dhalay waana ka tagaa ma isnaqaano ma malay kartid dhibaatada jirta ummadeena laakiin ilmo waaweynoo aabahay ma aqaano ku dhahayo adduunka intay ka dhacdaa ii sheeg dadkan xun oo diinta aan haysan aan la degannahay hataa ma sameeyaan saas badankooda marka arrintaas waa mid ku dadaala caruurtiina maaragtay kii oo hadda ka hor dambi galay oo caruurtii ka maqnaayna ku laabo cafis weydiiso caruurta dib u baro wax dhibaato taas male kuwa hadda yaryar oo haystana please waqti geli haddaad adii xaaska kala tagtaan taas waa gaar midda caruurta aad dhashayna waa gaar kala xisaabtamo waan kala tagnay xaqaadi waa kana maharkaadi waa kana walaalay caruurteeda intaasaan ugu baahanaya intaasaan awoodaa inaan dhiibo intaasaan rabaa inaan arko maxaa ka leedahay ayadana sidoo kale wiilkana gabartana sidoo kale ha siiso maaragtay in wixii saas leysku dhaafsado aad u fiican tahay oo ma arkinoo ilaahay maaragtay ha noo gargaaro kulligeenba inaan arrintaasi ku dadaalno waaye wallahi aad u xanuun badan tahay caruur kuwa waddanka joogana maba kusii jirto dad badanaa ilmihii iska dhala waxa caruurta streetka jooga waa yaabaysaa aabbaa dhalay waxa kumanaan qof caruura ordaysa magaalooyinkaasayta oo homeless ah oo street kid ah oo meel haysan oo
aabbaa dhalay cirka ma kasoo dhicin. Aabbii hooyo isku tagay aa carruurtaas abuuray. Marka dadkaasna waddanka joogana isku noqdo, isku laabto. Oo haddaa jaad cuni jirta jaadka yaree, bal fikir waxaa tiraa yaa iga maqan. Waqti qaado. Waxaanayto waa wax lagugu leeyahay, waa xaq lagugu leeyahay, xaqaada gudo. Intaasaa raba videoga inaan kusoo gabagabeeyo. Mid yaroo dhaqso buu ahaa. Please share garee. YouTube keenana maxaa la dhahaa ii sheeg Warrior Nation YouTube. Please maaragtay subscribe and like deh. maaragtay kana share garee. Insha Allah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.